وقصة حنون بدن oo ku saabsan aafada iyo halaaga Wanexpert oo ku hayo dhalinyarada Soomaaliyeed. Waana qiso ku cibro qaadasho mudan oo uu ka sheekeynayo ninkii ay ku dhacday oo la yiraahdo Cabdi Caawiye Ismaaciil Guntigaab. Waxa uu yiri oo qoraalkiisa ku bilaabay sixirkii qarsoonaa Wanexpert. Waxaan ku waayay caafimaadkaygii oo aan yeeshay dhiikar aan xad lahayn. Waxaan ku waayay shaqadaydii, waxaan ku waayay farxaddii gurigayga, waxaan ku waayay sharaftaydii, waxaan ku waayay asxaabtaydii qayb ka mid ah. Waxaan ka hadlayaa waa application ama waxa loo yaqaan Wanexpert oo ah aalad la ciyaaro oo lacag lagu shubo oo laga helo ama laga waayo. Noloshayda isku toosan oo wax walbaaba sidii ugu fiicnayd ay u yaalaan ayaa maalin aan kulananin aan saaxiib ahayn. Intii aan la joogay ayuu yiri lacag ma ku siiyaa? Dabcan waxaan yiri haa, laakiin halkee ayaad ka keentay lacagtan ayaan weydiiyay. Wuxuu igu yiri waxa laga helaa application-kan Wanexpert. Wuu i fahansiiyay sida loo ciyaaro iyo sida lacagta loogu shubayo iyo sida looga saarayo. Waan bilaabay waxayna ahayd markii ugu horeysay ee xiriiriga noloshayda. Waxaan wadaba waxaan iska arkay anigoo aan lahayn hami kale iyo fikir kale ilaa inaan lacag helo oo aan ku shubo Wanexpert si aan lacag uga sameeyo mooyaane. waxyaalaha cajiibka ee aan ku ogaaday in ay sixir tahay dad badanna iga sheekeeyeen waxa ka mid ah waxaad lacag weydiisanaysaa qof kugu qaaliya oo inaad ka xishooto waxa ka weyn inaad lacag ku shubto application-kan. qaar ka mid ah saaxiibaday oo aan meel ka wada shaqaynaynay mid ka mid ah wuu u geeriyooday stress iyo buuqii ku dhacay markii uu ku waayay lacag ka badan $30,000. aan sii waday waxaan maamulo ka noqday dhakhtar ka mid ah kuwa ugu fiican ilkaha oo la oran jiray Daif. wax walbaaba way toosnaayeen oo geemkan inaan ciyaaro Khamiista ayuun baan haleeli jiray. maalmaha ka mid ah 2022 ayaa waxa lacag siiyay mulkiilayaasha dhakhtarka mid ka mid ah oo la yiraahdo Dr. Saciid oo ah nin runtii intii qof wanaagsan yahay wanaagsan. markii aan lacagtii qaatay oo cadadkeedii u dhammaa $100 ayaan isiri $10 lacag badan ku samee oo Wanexpert ku shubo. waxaan wadaba sidii aan kolba shan ugu shubaayay waxaan ku isticmaalay $100 wax ka yar 30 daqiiqo anigoo bilaa basa ayaan ka kacay meeshii. waa maalintii aan ogaaday in la haysto oo aanan caadiba ahayn. waxa la ii diraa mushaharka oo waan ku shubaa xaafadaydina waxaan ku iraahdaa wali la ima siinay suga. waana sababaha aan ku waayay jacaylkii qoyskayga. maalintii dambe anigoo isleh dib ha u ciyaarin ayaa waxa lacag ii soo diray mid ka mid ah dadkii ugu wanaagsanaa ee garabkayga aan marnaba ka bixin Engineer Faisal Ali Hussein oo Canada ku nool. lacagtii isla markii ay ii soo dhacdayba waxaan si automatic ah ii horyimi application-kan Wanexpert oo aan isiri lacagihii uu ka cuna ka soo cesho dibna ha u ciyaarin. waan ku shubay waxaan wareejiyay waxaan halkii ka kacay anigoo aan xitaa ilmahayga oo aan islaha dawo u sii qaad aan $5 ee dawada aan haynin. oo waxyaabaha aan ku ogaaday in la haysto oo aan caadiba ahayn. waxa ay socotoba Khamiistii waan ka kordhiyay oo waxay noqotay inaan maalmo ku daro oo aan 12 duhurnimo iska tago aan shaqadaba ku soo noqon. waxaan u tagi jiray mid ka mid ah saaxiibaday oo application-ka Wanexpert daraadii faalig ugu soo booday Allah caafiya. shaqadii markii aan sigsaagay ayaan isirahay isku ceeboobina oo waan ka tagay waxaan shaqo ka helay dhakhtarka Manila oo maqaarka qaabilsan oo aan maamilo ka noqday. waxaan lahaa qofkii ugu wanaagsanaa ee igala tirin jiray inaan ciyaaro Dr. Cabdiraxmaan Sugsug. sidii si laag ayaan bilaabay sigsaag inaan waqti u helo inaan ciyaaro. shaqaduna kama ay maarmayn inaan anigu wado oo dadka loo shaqaynayo aniga keeni jiray maamulina jiray meeshii intii hore kor ayaan u soo kiciyay oo waxaan gaarsiinay meel fiican. laakiin muddo kadib ayaan isbaranay nin ka yimi Carabta oo ay Wanexpert ka cuntay $75,000 oo musallafay. laakiin wuu amaanay anigoo sideedii kale password aanan iska jabin karin inuu ugu xidhan yahay. waxaan ku dhiiraday wax aanan ab iyo isir u lahayn oo ah inaan qof walba weydiiyo lacag xitaa kii aan ka waayo aan bas ii dir iraahdo. muddo kadib anigoo jooga Manila ayaan waxaan helay khad baasaboor lagu sameeyo. dad ayaan u sameeyay oo gacanta ka saaray 15 cisho gudahood. dadkii dad ayay igu soo xireen habeenada ka mid ah ayaa inaan ii soo diray $4,500 oo igu yiri baasaboor ii soo samee. markii lacagtii soo dhacday ayaa ileen waxba i jiidanayay aan isiri niyow caawa 100 markuu wada shub aad kala baxdid wixii ay ka cuntayba. waan ku shubay sida aan kolba wax ugu shubaayay
waxaa meeshii ka kacay iyadoo aanan haynin wax ka badan $500 $4,000 ayay iga cuntay waan iska joogay maalinta shaqadii ma tegin duhurkii ayaan iri $500 miyaad kaga soo celisid intii ay ka cuntay ilaa qof ayaa baasaboorkii ka sugayay intii badam way u afuuftay anigoo murugaysan ayaa waxaa $3,500 ii soo diray inan kale oo ina Jibriil Bushaaro la yiraah oo ardayda kamid ahaa markii lacagtii soo gaadhay ayaa waxa aan isiri ilankii ka horeeyay ayaa lacagtii ka sugayay 100 ku ciyaar bal amarka alle waxa aan habeenka ka sameeyay $7,000 $1,000 markii ay subaxdii noqotay hadda waan jaray shaqadii oo cudurdaar ayaan u sheegtay si aan lacag badan oo kale uga sameeyo laakiin maxaa ka dambeeyay $7,000 iyo $3,400 ayay iiga cuntay isla habeen gudihii habeenka waxaan dareemay wadna xanuun iyo in neeftu dhibayso aroortii ayaan u tagay dhakhtarka wadnaha Maxamed Xasan ee Isbitaalka Gargaar waxa uu sheegay in wadnahaygu uu halis ku jiro oo dhiig kar igu soo booday oo uu wadnaha saameeyay laakiin waxaasi waxa iga weynaa sixirkii wanaagsan iyo lacagtii labada qof ee baasaboorada iga sugayeen maalin kadib waxa aan tagay masaajidka Nakhiil goor maghrib ah nin aan garanayn laakiin ila muuqda diin badan ka muuqato ayaa markii salaadii laga baxay ee aan ka cisiri gacanta ii qabtay oo igu yiri waan dareemayaa in dib ku haystee sheekh uu tag waa sixran tahay waxaan isiri malaha waa qof xanuunsanaya haddana ilaa uu muuqanin qof xanuunsanaya wallahi ilaayn nin laga sugay $8,000 ayaan ahaye wax dadkii baasaboorka iyo mustabaqayaasha iyo dhalashooyinka lacagtoodii ii keenaanba waxay lacagtii noqotay in la ii sheegto $16,000 hadda wax lacag ahi waxa ay ka dhibaysaa ma jirto waxaan isoran jiray uun hadhow ayaad unexpect ka soo celinaysaa lacagta waxa iga bixiyay walaalka Jimcaale iyo jago hooyaday lahayd ayaan darrada igu dhacday waxa kamid ah inaan kala garan waayay waxayga iyo waxa dadka shaqadii Manila Derma Clinic waan iskaga tagay oo waxa aan baxay 40 cisho laakiin waan dareensanaa inaan wali wax igu maran yihiin oo waxa aan islahaa 4 bilood bax anigoo soo noqday ayaan isiri miyaa sagal jid u shaqo doonatid oo waxa aan u tagay qof kamida kuwa aan bini'aadanka alla abuuray ugu jecelahay Cabdi Yusuf Aar oo ah qofka ugu sareeya sagal jid waxaan ku yiri shaqo ayaan rabaa waxa igu yiri hay'ad diyaar soo gal waxaan ku yiri dhulkii aan khuruujka u baxay ayaan ka soo noqonayaa oo dadkii ayaan soo macasalaameynaya okay ayuu igu yiri waxaan maray ilaa 7 tuulo oo xadka ku teedsan maalintii dambe ayaan ka soo noqday Xarshin anigoo Arbeeko ama hotel la seexdo jooga ayaa waxa ii yimi nin chat sita oo ciyaaraya bahashi waxa uu igu yiri lacag bir ah aan ku siiyaa Somaliland igu bedel wanaagsan ayaan ku shabanayaa waxna waan ka siinayaa markii ay dhashay wanaagsan markii aan maqlay waan isbedelay automatically waan ugu shubay wuuna iga tagay habeennimadii anigoo sii seexanaya ayuu igu soo garaacay oo aan ka furay waxa uuna igu yiri game fiican oo ku dhex jira wanaagsan ayaan helay numberkaaga ii sheeg waan u sheegay oo waxa uu ii diray $100 markiiba waxaan weydiiyay gameka magaciisa oo 100kii ayaan ku shubay oo adeegayla mushaax ee Tolosom ayaan kaga shubay ilaa saad caadi ah Ethiopia kama shaqeynaya $100 ayaa waxa uu dhalay $950 laakiin aad ayaan uga xumaa anigoo 16,000 oo deyn ah galay khuruujna baxay inaan ku noqdo laakiin waxa iga awood weynaa waxa ay haystay wallahi waxaan Hargeysa ku soo noqday anigoo 900 laakiin xaafadayda marnaba ma siin wax ka soo baxay wanaagsan waana inta ay caruurtaydu ku badbaaday ugu dambeyn waxaan shaqo ka bilaabay sagal jeed oo aan abaal weyn u hayo shaqadeydii ayaan bilaabay laakiin waan arkayay in ay wax igu maran yihiin xaaskaygu waxay igu oran jirtay Cabdi oo isxakame oo iska ilaali lacagta shirkadaasi inay moobilkaaga dhexmarto waayo dhibaatada ay haysata wallahi xaaskayga iyo familkaygaba waan u sheegay inay wax iga siihiin oo aanan caadi ahayn isna xakamayn karayn oo lacagta aan helaba waxa uu iga baabi'inaya hal mar uma aan sheegin familygayga ee in badan ayaan u sheegay xaaskayga oo ah qofka ugu samir iyo dulqaad badan dumarka Soomaali waxaan been u sheegay 2 sano oo aanan xitaa biil hagaagsan aanan siin ama aan ku lahaa la ima siinin iyadoo aan ku shubay wanaagsan
waxaan shirkadii ka shaqeeyaba oo aan ku ducaysto in Allah subhanahu wa ta'ala aanu igu fashilin sidii shaqooyinkii hore ayaa waxa si kadisa aan suuqa ugu kulanay qof kamida kuwii aan baasaboorada aan u sameeyay 2023 horaantii oo igu lahaa $800 wuxuuna igu yiri saaxiib xaalad ayaan ku jiraa lacagtaydina waan u baahanahay isla berri ayaan shaqada kuugu imanaya tala ayaa igu cadaatay waxa aan hayay lacag aan ku soo iibinayay kiisha shirkadda ka go'na markiiba waxa uu shaydaanku igu soo riday bahashii oo aan waxoogaa ducooyin iyo adkaar kaga badbaaday markiiba 50 ayaan ku shubay waan waday ilaa ay iga cuntay 750 oo macaamiisha aan ugu soo iibinayay kiishash tala way baahday waan gartay bahashan sixirkeedu yahay marina ku soo yara dhaweyso kadibna aad inta kale shahaadato waxaan u tagay nin Xamse la yiraahdo oo iska leh Hargeysa Baby Center oo ilaa xad qof fiican ahaa waxaan ku yiri keen lacagtii boorarka lagu sameeyay waan ka qaaday oo ay noqotay sidii aan oran jiray ku ciyaar ninkii lacagtiisii sitii macaamiisha u celi tanna akoonka shirkadda ku shub marka ay dhasho waana sixirka ku jira ee wax walba ku oranaya iminka ay dhali doontaa mid ka badantii hore intiina way cuntay shaqadaydiina waxa aan jabiyay shuruucdeedii oo waxa la igu qaaday qodobka khiyaamo shaqo waana siday tahay oo qofna guntaada iyo qalbigaaga ma ogaan karo anigoo arrin igu cadaaday ayaan maalin khamiisa galin dambe iska tagay markaska tabliiqiyiinta ee bariga Hargeysa anigoo iska fadhiya halkii kana murugaysan dhacdada cusub iyo sida aan waxan iiga hadhayn ayuunba waxa garabka iga taabtay nin sheekha oo igu yiri aad baad u ooyeysaaye maxaa ku helay waxaan uga sheekayay dhibaatada aan kala go'aalahayn muddo 2 sanadooda wuxuu igu yiri mar dhow ayaa la ducaynayaaye sheekha u tago ku dheh hal ii duceeye sheekhi ayaa in yar oo guudmar ah uga sheegay qisadayda markii la tukaday ayuu yiri inaan walaalkeena ayaa inaga codsaday in dhibaatada haysata alle ka kor qaado ee aamin dhaha markii aan sunaystay ee cabaar fadhiyay waxa ay soo hormaray wixii aan dib 2 sano aan ku jiray waxa aan la yaabay sida jirkaygu isu bedelay iyo sida aan u ekaan jiray wallahi waxa aan noqday uun sida nin hurdo riyo badan ka soo kacay laakiin waa goor aan wax walba waayay laakiin haddana aad ayaan u faraxsanahay inaan maanta xor ahay xagga naftayda kuntiyo gabagabadii ma doonayo sida ay ugu dhacday iyo sida saaxiibada qaar ugu caafimaad waayeen qaarna naftooda u waayeen in dhalinyaro iyo dad kaleba ay u waayaan dhalinyaroy wallahi waa halis halis aan cidna ku ogeyn alla ayaa mahadleh iga badbaadiyay inaan naftayda isdhaafiyo oo aan aakhirana meel ka waayo sida ku dhacday badan oo aan u ducaynayo inuu alla janno geeyo bulshay bahashaasi waa sixir malagii la socdo imisa qoys u burburay imisa nin qaali ahaa isu deldelay Allah waxaan uga barayaa sida uu iiga saaray inuu qof walba uga saaro saaxiibkay Cabdirasaaq Maxamed Cabdullaahi ayaa igu yiri habeen aan fogeyn warniyo shaqadaada waxa ka galaaftay waxan aad ciyaarayso wallahi hadalkiisu run ayuu ahaa waxaan dambidhaaf weydiisanayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo aan qaladka weyn ka galay ina waafajiyay inaan ka noqdo qoraalkan waxaan ugu dhiiraday inaanay ku dhicin dhalinyaro kale wabillahi tawfiiq haddaba dhalinyaro ka digtoonow aafada khamaarka wanagsbeed oo Rabbi subhanahu wa ta'ala uu xaaraantinimeeyay waxaad ogaataa noloshaadu inaanay halaag iyo dhib ka baxayn intaad Ilaahay macaasidiisa aad ku jirtid war dhalinyaro waa halis ee ka digtoonaada aad baa u mahadsantihiin muuqaalkan sii sheer gare oo ammaan kugu yahay si dad badan oo Soomaaliyeed ay uga faa'iideystaan